jaamacada camuud ee magaalada boorama waxaa la aasaasay 1998 waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu tayada iyo samcadda fiican jaamacadaha Soomaalida waxay ku taalaa magaalada boorama oo kaga beegan tahay dhinaca bari waqooyi oo u jirta ilaa 5-4 kiiloomitir waa jaamacada kaliya ee looga yimaado meelo ka baxsan deegaanada Soomaalida amba deegaanada fogfog ee Soomaalida waxay isku jirtaa goob dalxiis iyo goob waxbarasho qof kasta oo gobolka awdal taga amba magaalada boorama waxa uu jecel yahay inuu booqdo amba uu tago halka ugu horeysa uu booqdana waxay noqotaa jaamacada camuud waxay ku taalaa deegaan waxbarasho qurux badan oo iyadu iska leedahay dhul weyn oo ballaaran oo waxbarashada ku fiican dalxiiska iyo indhahana u roon ayay gudaheeda ku taalaa dhismayaal qadiimiya oo in badan la dhisay waa mid ka mid ah jaamacadaha ay ka baxeen dadka ugu aqoonta badan Soomaalida amba imika hogaamiya dhammaan siyaasadda Soomaalida waxay leedahay deegaan waxbarasho qurux badan oo la oran karo waxay leedahay the best environment of education maxaa yeelay deegaanka iyo dhulka cagaaran iyo meesha hawadii waxay ka mid tahay waxyaalaha qurxiya qofka waxbarashadiisa muuqaaladan yaryar ee ka duubay ila daawo oo igula dalxiis kolley waxay fiidinaysaa dhismayaasha qadiimiga ah iyo jaamacadda la aasaasay 98 ee qadiimiga ah taariikhda fadlan ee halkaas ka soo galaya jaamacaddu intaa wixii ka horreeyay iyo in badan oo ka horreysayba waxay ahayd dugsi sare oo kooban oo wax lagu barto waxbarashada sare lagu barto oo jaamacadda way ka qayb qaadanayeen odhan kara
jooga jaamacada Amoud ee عمود حقيقة طالع waxa ku taalaan gobolka awdal caasimadiisa boorama وقوبنا عيا waa goob aad iyo aad u qurux badan oo wallahi de waa habi انت شهر بات من إن أتسابقت waa markii saddexaad aan ku soo noqdo isla sanadkan gudihiisa مركز سنة أتسابقتها عشان aad iyo aad markasta waan jecelahay jimco kasta waxaan tiraa ma timaadaba وتا عمود يونيفرسيتي أنا شو جنامات باي باي طيب